السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قالي وسيلو هذا الجردين امتحانها مادة أكلر باثولوجي هدو إلى راد maanta waxaan ka hadlaynaa eyelid pathology eyelid guud eyelidka guud ahaan casharadan soo sheegnay introductionka eyelidkan ku bilaabanaan dhahnay soo marka eyelid pathology waxa la ka hadlaynaa hadu ila rad eyelidka guud ahaan waxaan kaga soo hadalnay anatomical ahaan waxaan kaga soo hadalnay maadada ocular anatomy and physiology cudurada ku dhaca waxaan kaga soo hadalnay maadada ocular disease kan kaga soo hadalnay cudurada ku dhaco hadda waxaan ka hadlaynaa haduu ilaa yiraahdo eyelid pathological ahaan mataqaana eyelidka pathology waxyaabaha ku dhaco waxa ku dhaco eyelid pathology waxaan ka hadlaynaa eyelid inflammation meeshan pathology meesha taa inflammation kala jeeda markaan qorayo waxay qalde sidoo kale eyelid tumorska iyo eyelid cyst intaas baan kaga hadlaynaa haduu ilaa yiraahdo haddaan ka bilaabno cashirkan koowaad eyelid inflammation ku dhaco guud ahaan laba loo kala qaadaa non galamatous iyo galamatous loo kala qaado non galamatous maxaa la marka galamatous iyo non galamatous waxa kale oo la dhihi karaa non infected iyo infected waxa kale oo la dhihi karaa infected iyo non infected soo marka non infected ka kuwa maxaa kamid ah marka infected ka kuwa maxaa kamid ah waxa kamid ah bacteria viral intaas waxaa mataqaana non galamatous ku jiraan bacteria maxaa ugu hore external hordeolum waan mataqaana eyelidka nabraha qaybta hore kaga soo baxo marka waa acute waa externalka markuu yahay waa acute mid si degdeg u dhaco wuxuuna inta badan ku sameysmaa hair eyelashes hair follicles mataqaana timaha oo eyelasheska ay follicles oo wuxuu ku sameeyaa waxyaabo oo mataqaana follicles sidoo kale wuxuu kaloo la xiriira glandiga loo yaqaano zinc gland oo ku yaala eyelidka maxaa sababa marka waxaa sababa bacteria loo yaqaano streptococcus bacteria soo marka impetigo marka laga hadlayo surgical ahaan waa superficial mataqaana superficial skin of infection wuxuu ku soo qaybta hore eyelidka skin of eyelid infection uu ku soo superficial qaybta hore maxaa ku sababa marka waxaana ku sababa streptococcus aureus bacteria loo yaqaano iyo streptococcus pyogenes bacteria loo yaqaano viralka markii la haro viralka waxa ugu caansan bacteriada hal mid kamid aan ka soo qaadanay waxaan ka soo qaadanay external hordeolum kaga soo qaadanay markii laga hadlaayana viralka waxa ugu caansan Molluscus contagious waxa la Molluscus contagiouska waa eyelidka markii cuduradan kaga soo hadlayna waa ka soo hadalnay waa skin infection waa viralna waa waxa sababa human specific double strain waxaa sababa cudurka oo ku dhaca mataqaana eyelidka nabraha kaga soo bax guud ahaan jirka kaga soo bax skinka waana DNA oo box virus waxaa la busbuska ayaa sababa dadka busbuska qabo muscle wuu sababa nabraha eyelidka waxaas kaga soo baxa waa viral waa microscope kaal ahaan markii lagu fiirinayo Molluscus contagiouska markii microscope lagu fiirinayo wuxuu ka samaysan yahay waa single and multiple bell oo wax sidoo kale waxaa amplified nodal waa in markii lagu fiirinayo maadaama pathological aan fiirinayno mataqaan Molluscus contagious waxa uu yahay hadda markii ocular disease lagu hadlayo Molluscus contagious waxa leeyahay waa nabra ka soo baxo mataqaan superficial of eyelid skinka waxaana sababa box virus sababa busbuska sababa laakiin in pathological aan marka laga hadlayo qaabku ku sameysma microscope hadii nabrahaasi mataqaana la isticmaalo oo mataqaana biopsy ama la isticmaalo ama mataqaana in la soo jaro la geeyo maxaa ku arkeena waxa ku arkeena microscope kan waa single ama multiple bell oo umbrelled nodal waxyaabahaas noocaas ku arkeena soo marka waxa kale jiro viral waxa kale ugu caansan herpes zoster ophthalmic waa Froxella virus waxa sababa virus loo yaqaan Froxella zoster virus asoo soo kale herpes simplex saddexaas nooc waa mataqaana waa mataqaana viralka waxaan kaga soo hadalnay bacteria iyo viral sidoo kale galamatoska asiga waxa ugu horeeyo waa non infected ka waa Vorian body granuloma waa more organic materials waxyaabo materials badan iskugu tago sidoo kale TB waa tuberculosis kaasi waxa ku soo ulceration ama scar formation ayuu soo sidoo kale sarcoidosis ayuu soo saddexdan waa non galamatosis ay ugu caansan yihiin sidoo kale inflammation of lid margin eye inflammation guud ahaan kaga soo qaadanay
inflammation of lead marginka laba qaab oo kala qaadana marka inflammationka lead marginka hareeraha eyelidka oo inflammationka ku sameysma waxaa ugu caansan blepharitis-ka laba loo kala qaadaa waa chronic oo anterior chronic anterior iyo chronic posterior loo kala qaadaa chronic anterior-ga pathogenesis-ka waxyaabaha ku soo wuxuu affect gareeyaa area surrounding the base of eyelashes-ka waa area ku hareereysan eyelashes-ka ku soo marka waxaa sababa marka laba bacteria sababto streptococcus bacteria iyo seborrheic labadaas bacteria waxay ku sababtaa pathogen oo mataqaana blepharitis-ka ay sababa chronic anterior-ga chronic posterior blepharitis-ka qaybta dambe chronic blepharitis-ka qaybta dambe waxyaabahaas waxaa ka pathogenesis-kiisa waxaa sababa mammalian gland dysfunction gland ku yaala eyelid marginka oo loo yaqaan mammalian gland markuu ku dhaco dysfunction shaqada uu joojiyo markaas waxaa ku dhacayo mataqaana blepharitis oo chronic anterior dhaca so marka waxaa jiro inflammation of lead marginka glandiska inflammation glandis kan hadda wuxuu eyelid marginka inflammation ku dhaco lead marginkaasi glandiska ku dhaco eyelid glandiska inflammation ku dhaco waxaa ugu horeeya external hordeoln sidoo kale waxaa kaloo ku xigo internal hordeoln sidoo kale waxaa kaloo jiro calizium saddexdan waxaan kaga soo hadalnay maadada ocular disease-kan kaga soo hadalnay waa nabra ka soo baxo eyelidka waxay ku kala duwan yihiin mataqaana kuwaan ay yaryaryihiin kuwaan ay weyn yihiin iyagoo tiro badan waxaan kaga soo hadalnay maadada ocular disease-ka midka kood waxaan kasoo dhameyn eyelid pathology eyelid inflammationka laba u kala qaado lead marginka inflammation ku dhaco lead glandiga eyelid glandiska inflammationka ku dhaco guud ahaan intaasaan kaga soo hadalnay eyelid cystiga nabrahaas ka soo baxo ku dhawaad aad ay u tiro badan yihiin ku dhawaad waxay gaaraan 11 12 wax ka badan ay gaaraan soo marka afar ka mid ah soo qaadanay waxaa ugu horeeya dermatocyst waxa la dermatocyst intoo kaga soo baxa qofka eyelidka wuxuu kaga soo baxa side of temporal dhanka dhegta dhankan oo dhegta sanka dhankeeda ma dhanka kale dhanka xigta ayuu ka soo baxa sidoo kale wuxuu ka soo baxa eyebrows-ka mataqaana sunyaha loo yaqaan ayuu ka soo baxa clinical ahaan mataqaana caafimaadka marka la joogo qaab nooco soo muuqana abiir wuxuu usoo muuqanaa firmis ama rondi mobile mataqaana mid jiidma oo haddana wareeg leh ayuu ku sameysmaa nabrahaas dermatocyst loo yaqaan wuxuu kasoo baxaa eyelidka cystiga labaad nabrayaasha kasoo baxo eyelidka waxaa loo yaqaana epidermoid cyst similar waxay la mid tahay oo mataqaana la mid tahay dermatocyst oo dermatocyst maxay ahayd waxay kaga soo bixaysaa temporalka dhanka dhegta dhankeeda kaga soo bixi dhanka oo dhegta dhankiisa soo aadis oo dhanka guud ahaan isha laba qaab loo kala qaada halka il intana hal il waa soo marka tan inta waxaa waa loo yaqaana temporal intana waa nasal nasalka intana waa nasal intana waa temporal marka temporalka waa dhankaan dhegtiisa soo xigta dhankaan waa sanka dhexdiisa waa soo marka meeshaas ku sameysmaysa waa similar waxay la mid tahay dermatocyst ayay la mid tahay laakiin waxaana la sii socdo oo tii hadaa waxay kaga duwan tahay no skin appear skinka wax kama soo muuqana maqaarka isha baalka isha wax kama soo muuqana sidoo kale no abscess continent waxyaabo oo species continent laguma arkayo waxyaabo oo nabraas ku jiran laguma arkayo waxaa kaloo jiro cystic gland waxa loo yaqaan jiro cystiga glandiga cystiga waxyaabaha ku sameysma waxaa ku sameysma small oo non translated cyst oo anterior lead marginka ku sameysma contain waxaa ku jiro keratin waxaa type kamid ah bacteria mataqaana proteinskaas ayaa ku sameysma waa lead marginka cystiga ku sameysma waxaa kaloo jiro cyst oo gland cyst ball of glandiyadan waxay ku jiraan eyelidka ku yaalaan eyelidka ayay ku yaalaan soo marka waa rounded waa kan wuu wareegsan yahay one translated waa non tended of fluid abscess of leadka soo marka laguma arkayo kan kii hadaa lead marginka waxaa lagu arkaa mataqaana keratin waxyaabas lagu arkayo sooma kan laakiin laguma arkayo fluidna laguma arkayo sidoo kale close wuxuu u dhow yahay wuuna u dhow yahay kii oo wuxuu u dhow yahay gland cyst ayuu u dhow yahay laakiin kulma lagu lahaa lead marginka eyelid marginka kuma lagu lahaa oo ka madax banaaniya ugu dambeyntii midkan saddexaad aan soo gaarnay midkan saddexaad waa eyelid tumorska guud ahaan classification waxaa loo kala qaada labaa loo kala qaada inuu yahay beginning ama malignant tumorkani markuu caadi tumor uu yahay
So marka beginning malignant tumor maxay ku kala duwan yihiin? Malignant waa cancer nabarkaani waa cancer wax ma barneysana kaliya waa in la daaweeyo loo noqona waa in la jaro loo noqona cancerkaas tumorkaas halka beginningkan uu yahay waa normal tumor waa tumor caadi iska ah mataqaana haddii la daaweeyo haddii waa xaalado qaarkood soo la daaweyno iska reysana waa labadaas asaasi ku kala duwan yihiin beginning iyo malignant waxay ku kala duwan yihiin soo marka haddaan ku hormarno beginning tumor waxaa la beginning tumor waxaa ugu caansan afar ugu caansan waxaa ugu caansan papillomas waxaa kaloo ugu caansan tensiloma waxaa kaloo caansan hemangioma iyo neurofibroma dhammaantooda waa beginning tumor waana early tumorska ku dhaca mid kasto markii ocular pathology markii laga hadlayo mid walba pathogenesiskiisa si walba si gooni loogu hadla laakiin anaga waxaan kasoo qaadanaynaa mid walba waxa uu yahay iyo qeybaha ugu muhiimsan kasoo qaadanayna midka labaad malignant kuwa kansarka waxaa ugu caansan basal cell carcinoma waa eyelidka kasoo baxa nabra kasoo baxa waa eyelidka waana cancer sidoo kale squamous cell carcinoma waxaa kaloo jira sebaceous gland oo carcinoma sidoo kale waxaa kaloo jira malignant melanoma ama waxaa kaloo loo yaqaana melanocarcinoma dhammaantooda waa canceriska ku dhaco eyelidka waxaa kaloo jira classification qaab kale oo classification loogu sameeya jiro waxaa loo sameeya epidermalka iyo adnexalka iyo stroma epidermalka waxaa ugu caansan non melanotic tumor iyo melanotic tumor melanotic iyo non melanotic labadaas ugu caansan waxaa kaloo ku jiro mataqaana taasi waa maqaarka guud adnexalka eyelidka guud ahaan isha markii oo mataqaana eyelasheska iyo eyebrowska iyo eyelidka waxaas dhan markii laga hadlayna waxaa ugu caansan sebaceous gland tumorka sebaceous gland tumor ugu caansan sweet gland tumor ugu caansan hair follicles nabraha hair follicles eyelasheskaasi mataqaana timahaasi tumorska ku dhaco sidoo kale cyst lesionska iyagana waa mataqaana kaas sidoo kale waxaa kaloo jira stromal tumorska asaa ugu tira badan waxaa fibrous tissue tumor sidoo kale fibrohistotic tissue tumorska lipomatous tumorka smooth muscleska oo mataqaana smooth muscle skeletal muscleska tumorska ku dhaca vascular tumorka perivascular tumorka neuval tumorka waxaas dhan waa stromalka sidoo kale waxaa kaloo jira secondary tumor iyo metastatic tumor intaas nooc waxaa loo kala qaadaa early tumorska waa idinkaga mahadcelinaya daawashada videogan waxaan ka hadlaynaa early tumorska tumorka ku dhaco cystiga ku dhaco inflammationska ku dhaco waa idinkaga mahadcelinaya daawashada video wax su'aalaha ka qabtiin dhanka commentiga noo reeb. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.